السلام عليكم أصحابتك وحورن channelkeena dadweynaha ee YouTube kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. waxaa jira waxyaabo la yaab badan oo kumanaan sano ku soo qarsoona gudaha hoose ee badda, taasi oo ay awoodi waayeen dadyowgii inaga horreeyay inay ogaadaan. ayada sabab u ahayd inaanay waqtigaasi jirin aalado ku filan oo waqtigaasi u saamaxay inay gaadhaan gudaha hoose ee badda, balse haatan ay fududeeyeen horumarka aqooneed iyo tiknoolajiyadu in loo dhaadhaco gudaha hoose ee badda, lana daahqaado oo la ogaado waxyaabo kumanaan sano ku soo qarsoona gudaha badda. haddaba qaar kamid ah waxyaabahaasi la yaabka badan ee gudaha badda lagu arkay ayaa culimada wax baadha waxa ay ku riday khalkhal iyo fajac, ayagoo isla markaana u waayay jawaabo waafi ah iyo waxay ku qeexaan. haddaba daawadayaal barnaamijkeena maanta waxaynu kula wadaagi doonaa waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee lagu arko gudaha hoose ee badda. hanaga dheeraanin ee daawasho wacan barnaamijkoo dhammaystiran. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا. walaalka sharafta badan ku soo dhawow channelka dadweynaha ee YouTube, kuna soo bir oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan adigoo riixaya badhanka casaanka ah ay ku qoran tahay subscribe. sidoo kale si uu ku soo gaadho muuqaal waliba oo cusub, riix calaamada gambaleelka. وإن جفا وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا. midka ugu horeeya qofku dul xidhan bir culus oo xadiida. arrinta qofkan ayaa waxay noqotay mid aad uga yaabisay qof waliba oo arkay. waxaa la isweydiiyey qofkan maxaa keenay meeshan sidan u fog, maxayse noqon kartaa sababta sidan loogu xidhay oo biyaha loogu soo riday, lamana garanayo sababta ka dambeysay in qofkan la mariyo ciqaabta intaasi leeg. ma xukun dil ah oo mutaystayba mise waa arrimo kale? ilaa haatanna lama aqoonsan qofkaasi cidda uu ahaa iyo qoomkii uu ka tirsanaa. waxaa hubaal ah qofkani in lagu riday shabaqa laguna dhex tuuray badda. qofkani sidoo kale waxaa kasii dambeeya shakhsi kale oo isna kursi lagu dul xidhay laguna dhex tuuray badda. qofkani ayaa lagu haya gacmahaba si adag lagu dul xidhay kursiga si aanay ugu suurtagelin inuu badbaado. waxaa hubaal ah labadooduba inay mareen ciqaabtii ugu adkayd. sida ay qolfoofku yaalaan iyo dhinaca uu madaxa u jeediyey waxaa ka muuqata in ay naftu si xanuun badan uga baxday, waxayna ka mid yihiin waxyaabihii ugu la yaab ka badnaa ee gudaha hoose badda lagu arkay. meeshani waa meel aad u fog, waana salka hoose ee badda. arrinta dadkii meeshaasi soo gaadhay aadka uga yaabisay ayaa waxay ahayd waxay ugu yimaadeen miis si farsamaysan u yaal, kursigiina uu ku toosan yahay, kombiyuutarra uu saaran yahay, sidoo kalena taleefan layn ah oo miiska dul saaran yahay. haddaba waxaa la isweydiiyey sidee suurtagal ku noqotay meeshan sidaasi u fog in kombiyuutarka iyo alaabadan sidaasi loogu farsameeyo. ilaa haatan jawaabo saxa oo arrintaasi ku saabsan lama hayo. burburka markabka dunida ugu qadiimsan. gudaha badweynta Mediterranean-ka, gaar ahaan biyaha jasiiradda Malta, ayaa waxaa laga soo saaray burburka markabka dunida ugu qadiimsan ee taariikhda la arko. burburka markabkaasi ayaa waxaa la soo saaray 2014. soo saarista markabkan ayaa waxa ay noqotay mid ka mid ah waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee gudaha badda laga soo saaro, ayadoo culimadu aaminsanaayeen inuu markabkaasi gudaha badda ku burburay ugu yaraan 2700 oo sano ka hor. jajabka markabkaasi ayaa badankiisii la helay lana ururiyey, ayagoo la sheegay waxyaabihii la helay badankoodu inay caafimaad qabeen, si fiican ay u muuqdeen. diyaarad ay gudaheeda ku jiraan qolfoofka ibniaadamku. rag baadhayaal reer Poland ah oo maalin maalmaha ka mid ah ku guda jira howlahoodii baadhista gudaha biyaha ayaa waxay arkeen diyaarad si fiican u muuqato ku jirta gudaha biyaha. diyaaradii ayaa markii ay gaadheen waxay ugu tageen waxyaabo aad uga yaabiyay runtii. waxay ugu dhex tageen diyaaradii oo sidoodii u dhex fadhiyaan labadii duuliye. madaxooda ayaa waxaa ugu jirta koofiyad, waxaana ka muuqatay inay la hardamayeen badbaadada naftooda. waxayna noqotay arrintaasi mid aad uga argagixisay raggii maalintaasi arkay, kadib markay ugu dhex tageen diyaaradii oo labadii duuliye sidoodii kuraasta dul fadhiyaan. halkaas ayuu maanta barnaamijkeenu inugu egyahay. intaasi aynu ka soo warrannay midkeebay ahayd midkii aadka ku yaabgelisay. kommentiga ku dhaaf intaynu barnaamijyada xiga sugan doonnaba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا. walaalka sharafta badan ku soo dhawow channelka dadweynaha ee YouTube, kuna soo bir oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan adigoo riixaya badhanka casaanka ah ay ku qoran tahay subscribe. sidoo kale si uu ku soo gaadho muuqaal waliba oo cusub, riix calaamada gambaleelka. وإن جفا وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا.